wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliya waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan iclaaminayno shir weynaha bandhiga maalgashiga caafimaadka qaranka. Bandhigan oo fursad weyn u noqon doona sektarada caafimaadka guud ahaan, gaar ahaan maalgashiga caafimaadka oo ay ka mid yihiin isbitaalada dalka, hay'adaha caalamiga iyo ganacsatada ka ganacsata qalabka iyo daawooyinka caafimaadka, sidoo kale xirfadlayaasha caafimaadka. Bandhiga iyo shirka isbarbar socda oo dhawaan ka qabsoomi doona magaalada Muqdisho waxaan iskugu keeni doonaa guud ahaan shirkadaha iyo xarumaha caafimaadka ee dalka iyo kuwa caalamiya. Shirkadaha iyo xarumaha caafimaadka dalka iyo khubaro caafimaadka iyo cilmi baarisyaal. Bandhigan iyo shirweynahan ujeedadiisa ugu weyn oo aan ka leenahay waa in horumar iyo maalgashi caafimaadka aan ka gaarno. Iskaashigan public iyo private-ka oo guud ahaan dhalin doona kacdoon hor u kac loo gelin lahaa nidaamka caafimaadka. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka arrimaha bulshada waxaa ka go'an horumarinta caafimaadka qaranka iyo maalgashiga caafimaadka qaranka. Waxaan iskugu yeeraynaa ugu baaqaynaa dhammaan cilmi baarayaasha, aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo xirfadlayaasha caafimaadka, shirkadaha agabka caafimaadka ka ganacsada iyo shirkadaha ka ganacsada dawooyinka, isbitaalada iyo ganacsatada, hay'adaha caafimaadka iyo dhammaan daneeyayaasha horumarinta caafimaadka qaranka inay ka soo qayb galaan kana qayb qaataan bandhiga caalamiga ah, sidoo kalena qayb ka noqdaan tayeynta iyo maalgashiga horumarka caafimaadka qaranka. Bandhigan oo socon doona December 14keeda, 15keeda iyo 16keeda. waxaa sidoo kale barbar socon doona dood cilmiyeedyo kala duwan, kulamo gooni ah, tababaro iyo bandhigyo fursado maalgashineed. aan iska kaashano oo aan ka wada shaqeyno horumarinta iyo maalgashiga nidaamka caafimaadka qaranka. mahadsanidin.